munaasabad si gaar ah loo soo agaasimay oo maanta lagu shaacinayay urur siyaasadeedka Mideeye ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, aqoon-yahan, siyaasiyiin iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha urur siyaasadeedka Mideeye. Qaar ka mid ah madax dhaqameedkii madasha ka soo qayb galay ayaa si diiran u soo dhaweeyay urur siyaasadeedka Mideeye. Sidoo kale guddoomiyaasha urur siyaasadeedada Gurmad iyo Hiigsi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururka Mideeye noqonayo ururka ugu taageerada badan guud ahaanba ururada Somaliland lagaga dhawaaqay. Guddoomiyaha garabka haweenka iyo guddoomiyaha garabka dhalinyarada urur siyaasadeedka Mideeye ayaa sheegay muhiimadda uu taagan yahay ururkani. Ugu dambeyn, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Mideeye Cismaan Maxamed Badmaax ayaa dul istaagay waxyaabaha uu taagan yahay urur siyaasadeedka Mideeye. waxaa marka hore islaam u sida guddoomiyaha oqaasha gobolka Gabiley waxaa leeyahay guddoomiye aad iyo aad baa ku saaran anigu xaafadiisii manhajka xaafadiisii waxaan halkan maanta ugu mahadnaqayaa dadweynaha sharafta laga soo qayb galay ee soo ajiibay codsigiisa inuu ka soo qayb galaa furitaanka urur siyaasadeedka Mideeye. waxaan oranayaa Somaliland waxaa ka marnaa Mideeye, mideeyaha siyaasadda, mideeyaha Somaliland, mideeyaha ururada siyaasadda cusub. waxaan leenahay soo dhowow. waxa uu dabaqay Cismaan Maxamed siyaasaddii xukuumadda ee furitaanka ururada. ururka Mideeye ee maanta la shaacinayo Cismaan Maxamed Badmaax aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. dhammaan qurba jooguna way ku soo wada salaamayaan. waxaanu leenahay kii jiray jooga noqo ururka iyo guddoomiyahaba ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu noqdo ururkii soo gudba. ummadda halkan toban dhalinyarada sharafta leh, dadweynaha, cuqaasha, nin waliba rabitaankiisii ayuu maanta halkaa ku yimi. hay-adaha sharciga ee inoo oggolaaday, distoorka inoo oggolaaday, madaxweynaha inoo oggolaaday ee inoo fududeeyey aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. sharciga inta oggol ee u hilinaysa dimuqraadiyadda ee ururada furatay aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. inta ka soo horjeedana aad baynu u dhaleecaynaynaa, u cambaaraynaynaa. isbadihii ururadu intay socdeen kii ugu ballaaday ama ugu weynayey. cismaan wuxuu ka mid yahay dadka aqoon-yahanka ah, wajiyada cusuba ee u baahan fursadda siyaasiga ah ee dadka taala inay helaan. Somaliland ururada waxaa la furay 2002 ilaa iyo maanta waxaa meesha maraya dad aynu horey isu soo daashanay oo aan qarankan wax badan oo taabagala aan u qaban. markaa ragga Cismaan Maxamed Badmaax ka mid yahay ee cusub waa inaynu soo dhoweyno. intaa waxaan ku darayaa horta waxaynu ku jirnaa xilli adag oo siyaasi ah. inta badanna waxaad moodaa ururada ka soo jeeda beesha uu ka soo jeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inaanay xafladaha ay qabanayaan inaanay xukuumaddu iman oo aanay soo camirinoo si gaar ah ayaad moodaa in il gaara lagu hayo. laakiin Cismaan maanta dabarkaa uu jibiyeyo waa kaa soo tubay dalkii taageeradii magaca ururka Mideeye inaanu koobnayno muhiimadiisa ugu weynina ay tahay in minbari ilaa galbeed aan loo kala soconin, aan loo kala hadhin. si xishmad loo qadarin looga codsanaynaa xaqa ururada inaan la dhayalsan. haddii wada hadal furmo in sharciga lagu dabaqo xeerarka dastuuriga ah
idinkana waxaannu idin rajaynaynaa dad baan qarankan siyaasiyiintoodii baa tihiin madaxdoodii baa tihiin in aa idinkoo wada jira waxaannu ku baaqaynaa idinku fogaan mayno oo is-afgarta aa soo gebagabaysaan khilaafkan siyaasiga ahaa mid sharci maaha oo mid siyaasi ah shacabku ixtiraam bay idiin hayaan ururaduna fidnad ma wadaane xuquuqdoodii aasaasiga ahaa ee muwaadin ahaan ay u lahaayeen ayay doonayaan waxaan ku soo gebagabaynayaa shacbiga somalilan waa mulkiilaha koowaad ee qaranka somalilan hadday doorasho noqoto haddii ay noqoto urur furis xilka qofka aa u saartaan ee u garataan ee u codaysaan ayuunbaa xilka qabanaya ilaahayna raalli ka noqo waxa aan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbi ee ururka mideeye ee halgamayaasha ah ee mar kastabana taageera cududoodii ugu ballaadhnay maanta ku muujiyey isu imaatinkan iyo shaacinta xafladda ururka mideeye waxaan ilaahay ka baryayaa aanu la cuskanaynaa haddii aanu khayr wadno inuu ilaahay nagu guuleeyo haddii aanu shar wadnana ilaahay naga ilaaliyo cabdirasaaq axmed aadan tayga telefishinka caalamiga SM News Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom